sare golaha shacabku wuxuu ku eedeeyay in sharci la soo wada sameeyay in maran habaabin lagu sameeyay sidoo kale qorshaha uu wado aqalka sare waxa sheegaya in dawladda federaalka ee Soomaaliya wax u sareysa aysan ku qanacsaneyn arrinkan marka muxuu u muuqdaa muxuu isku dambeyn karaa waska caadi waxa jira wax aan taariikhda ka baranaa jira waxaan taariikhda aan ka baranay dawladda Soomaaliya ama gaar ahaan madaxweyne Farmaajo iyo tiimkiisa marka ay rabaan inay dantooda siyaasadooda ay fuliyaan cid ay qabsadaan cid ka hooseysay ay ku masiibeeyaan waxaan ognahay mesela kale Puntland oo kale markii ay Cabdili Gaas uu joogay waxa lagu qataaray madaxweyne ku-xigeenkiisa lagu qataaray hadda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Abdali markuu yimid gudoomiyihii baarlamaanka kii hore lagu qataaray madaxweyne Xaaf markii la ridaayay waxa lagu qataaray oo lagu dhajiyay maya ahlu sunna kor waxa ka horeeyay madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo gudoomiyihii maya madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo gudoomiye baarlamaanka laga hor keenay jawaari markii la ridaayay waxa laga hor keenay Mudi iyo nimankii laga hor keenay marka business kiyo kala muuqda oo waa maxay waxa la sameeyaa gudoomiye Cabdi Xaashi iyo aqalka sare in inta la qaybiyo lagu qataarayo wiilkii kubad xataa ma kii labaad oo haddana macnaha oo haddana waxay ogtahay waliba markaad fiirisid Xaaf markii lagu qataarayo madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo midkan hadda Cabdi Xaashi la rabo in lagu qataaro oo lagu dagaalamo raadkiisa raadadkooda iyo mid iyo fil Soomaaliya wees galaan jib hal celibi ka cabaan marka waxa meesha macnaha waxa ka socda macnaha Soomaaliya dadkii la soo keenay iyo dawladnimadii iyo wixii iyo dadkii la isku soo aruuriyay burburin oo macnaha laba dhinac oo dhinacna waxa burburin lagu hayaa social fabric bulshada Soomaalida oo isu iimaanaysay oo la isku tuugayay oo la rabo dadku inay siyaasadda isku raacaan oo laga ilaaliyo siyaasadda beelaysan ayaad u jeedaa ayaad wax arkaysaa qurunkii beelaha maaragtay in hoos inta la soo qoday la qarafaysanayo la isticmaalayo la beeganayo wad u jeedaa waxa kale u jeedaa macnaha dastuurkan oo si kabkaba umada la isugu hayeen in la iska riixayo oo macnaha la rabo wax u eg manipulation oo taasoo dhamaanteed ku dhamaata fikirka dhahaya siyaasadda inuu kala adkaado aan siyaasaddu haddaan mar kale hadda korna waa sheegay siyaasaddu haddana waa laba iskuul ama waa laba dugsi ama waa laba aragti siyaasadda in la guuleysto iyo in la kala guuleysto markaad fiirisid madaxweyne Farmaajo iyo tiimkiisa iyo sidii u shaqeynayaan iyo sida hadda ay xalimayari ay ku taageerayso waxa waaye siyaasadda in lagu kala adkaado oo tiim oo qabsado oo aan noqon si kale haddaan u dhigo dawlad dadka ka adag iyadoo u talisa xoog leh iyadoo mas'uul ka ah iyo shacbi oo hees iyo hogaami aabow camal laga rabo saasoo kale camal waa macnaha ugu dambeyntii marka xaaladda siyaasadeed ee dalku wali jaham aysan yeelan waa isku qasantaa doorashadii waa ay soo dhowdahay wadama cayina maxaa xal ah dabcan hadda korna waa sheegnay haddana waa sheegaynaa siyaasadda Soomaaliya ma gaarin in muruq la isku sheegto siyaasadda Soomaaliya ma gaarin in la isku dawleeyo siyaasadda Soomaaliya waa madaxweyne Farmaajo villa Soomaaliya jooga wuxuu ku jiraa dhagaxow inta isku wareejiye oo dhagax kale isku wareejiye oo dhagax kale isku wareejiye oo ku dhex jira markaas oo magaaladii Xamarow xabsi ka dhigay oo xamar nuskiis marka aad joogto madaxtooyada xafiiska madaxtooyada ama gurigiisa marka aad joogto madaxweynaha Siinay waa u jeedaa Siinay ka soko saddex dhagaxa ku go'an oo saddex oo dirbiga madaxtooyada ku jiran ayuu madaxweynuhu oo ku dhex jira intaas waxa u geysatay cabsi oo u qaba nafsadiisa marka asagoo saas ah ayuu haddana wuxuu rabaa inuu qaato mabda ah siyaasadda Soomaaliya inuu kala adkaado oo asagoo inta dadka ka adkaado dadka oo xukumo rabaa waxaana sugaysa xafiiskiisa oo fadhiyo villa Soomaaliya ku yaala inta laga bilaabo oo wadadan dheer la maro oo marka aad garowga joogto Boosaaso aadid oo haddana soo laabatid midaan kale berbera aadid oo haddana Hargeysa tagto oo ka baxdo Boorama tagto iyo dhinacan kale hadaad Xamar ka baxdo Kismaayo inta tagto Dhobley tagtid ama hadaad ka baxdo wadada Afgooy inaad dhinac marka joogto Baydhabo ama aad Xudur iyo Qurac Jooma aad tagtid ama meesha kale oo intaasoo dhul ah oo Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya intaasoo madaxweyne ka yahay intaas caaw Siinay u muuqatay tigi ma kari
marka haddana wuxuu rabaa inuu xoog iyo mataqaanaa anaa madaxweyne ah oo anaa lacagta haysta hadday tahay tii carabta iyo hadday tahay tii kaloo dekada muqdishoba anaa haysta saasoo rabaa madaxweynuhu inuu dalka Soomaaliya ku xukumo marka macnaha marka dhibka jira marka wuxuu yahay marka waxaa la rabaa dadka Soomaaliyeed marka la dadka Soomaaliyeed waxaan u jeedaa inta wax garata dadka Soomaaliyeed inta wax garata gaar ahaan haddii kuwa madaxweynaha ku wareegsan ay ku jiraan kuwa wax garta waxaa la rabaa madaxweynaha Soomaaliya horta runta in loo sheego oo la dhaho mudane madaxweyne dalkan adaa madaxweyne ka ah waxaana lagugu talagalay sida dadka Soomaaliyeed siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo bulshad ahaan inaad horumarisid sida aad ugu dhaaratay dastuurkan waxa kale oo qoran oo record garaysan khudbooyinka iyo ballamadii oo qaaday oo ummadda Soomaaliya ka hor sheegay inuu fuliyo hadda ma fuli kariyo oo hadda waqtiga waa dhamaaday oo hadda cid ka sugaysa farmaajo inuu koobiye ama caag biya inuu miiska soo saaro oo horumar siyaasadeed ah maba jirta intii loo dhiibay ayuu kala daadiyay marka waxaa la rabaa dadka Soomaaliyeed in dadka Soomaaliyeed waxaa la rabaa gaar ahaan dadka madaxweynaha la jooga magaca doona ha kula joogaano sifada doona ha kula joogaano deegaan ha kula joogaano xildhibaan ha kula joogo senator ha kula joogo siyaasi hore ha kula joogo saaxiib kale ha kula joogo seedi ha kula joogo wax uu doona ha kula joogo inuu waxa muhiim ah madaxweynaha uu aqli cili karo oo uu dhigi karo mudane madaxweyne dalkan markuu dumay asbaabaha uu dimo waa badnaayeen laakiin hal asbaab ayaa sabab u ahayd hal nin ayaa rabitaankiisa wuxuu istusay inuu rabitaankiisa keliya oo dalka ka shaqeeyo dadkuna inta kale ay dhahaan aabbo u heesaan oo ay dhahaan 7 sano kale ku dooranna arrinkaas asaga ah marka Soomaaliya gudow ku riday marka dadka Soomaaliya waxaa la rabaa inay ka soo dhaxbaxaan dad wax garta gaar ahaan kuwa madaxweynaha la jooga mudane madaxweyne arrinkaani ma shaqeynaaye madaxweynuhu dalkan iyo dadkan iska dhaafada Soomaaliya madax ku tidba xataa Soomaaliya hadduu xukumo oo maanta digida diyaaradaha ee Hargeysa haday ciidanka xoogga dalka Soomaaliya diyaaradooda ay aali lahaayeen dekada berberana maraakiib ciidanka xoogga dalka Soomaaliya aali lahaayeen bay dhabana ay aali lahaayeen iyo mataqaanaa balidogle xataa waxaa la rabaa dadka in la soo toogo